كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد waxaynu ku jirnaa baab alqiyaas fi الطرف الثالث في أقسام العلة aynu ku jirnay. musanifku markuu aqsaamta cilada soo sheegay ictibaaraad kala duwanna loo qaybinayo iyo mawaaطin اlkhilaaf iyo aqsaamta khilaafku ka jiro oo lixa ayuu bilaabay. labaynu soo marnay altacliil bilmaxal iyo altacliil bilxikam. afartii kale iyo masaa'il taabica oo cilalka ku tacalluqa oo iyaguna ilaa 5 ah ayuu ku saabsanaan doonaa in shaa allahu tacaala cashirkeennan. wuxuu yidhi qiila alcadamu laa yucallalu bih lianna alacdaama laa tatamayaz wa ayضa laysa cala almujtahidi sabruhaa qulnaa laa nusallim faina cadama allaazimi mutamayizun can cadami اlmalzuum wainamaa saqطa can اlmujtahidi licadami tanaahiha. marka laga hadlahayo cadamiga, awsaafta cadamiga ah iyo awsaafta wujuudiga ah waxaynu leenahay 3 suuro wey. 2 fi ljumlati waa muttafaq calayh, midna waa mowdicu اlkhilaafi. markaad u eegto wasfigu inuu cadami yahay iyo wujuudi inuu yahay, aada barbar dhigto xukumku inuu hubuuti yahay iyo inuu manfi yahay, suuro cadamku shaqaba kuma laho xukmu hubuutiya iyo wasfi wujuudiya in laysku celeeyo, suuradaa dee cadam shaqa kuma laha. 3 baa soo haraysa: in xukumku cadami yahay, wasfiguna cadami yahay. hadihi waa jaa'iza laa khilaafa, intifaau اlxukmi licadami اlcilati. jusyadan waadna garanaysaa, alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wa cadaman, faidaa cudimat اlcilatu cudima alxukmu soo maha, ida intafat اlcilatu intafa alxukmu. jus-iyada cadamiga la isku cilaynayaay ishkaal kama jiro. suurada labaad ee soo hartay waxaa weeye in xukumku wujuudi yahay, aan iyadaba isaga gaabsana maxalu nisaac ah. in xukumku wujuudi yahay, wasfiga cilada ana cadami yahay. masaladaa ma la ogol yahay mise lama ogola? hal yajuusu tacliilu xukmi اthubuuti bilwasfi اlcadami? halkaa mawdicu nisaacu halkaa weeye. tiibu wuxuu leeyahay qolaa diiday akharka iyo jamhuurta, bimaa fiihim raazi iyo atbaacdiisa oo baydaawi musanifkeennu uu ku jiro, waxay dhaheen yajuusu. markay yajuusu yidhaahdeen, qoladii tiri ma bannaano lama ogolo yamtanicu yidhi, xujadoodii wuu soo hormariyey, jawaabtiina wuu dib dhigay. 2 sababood bay u yidhaahdeen laa yajuusu. alcadamu laa yucallalu lama cileeyo bihi bilxukmi اthubuuti اlwujuudi laguma cileeyo. waa madhabka aamidi iyo ibn اlxaajib iyo qolyo kaloo isla jira. waxaa la dhihi karaa madhabka jamiicu اlxanafiya, laakiin iyagu masaladan gaaru ma ahane aslanba cadamka muطlaqan waxba laguma cileeyo. madhabka xanafiyadu saa wey. laakiin shaaficiya haddaan nahay iyo maalikiyi iyo qolyihii mutakalimiinta usuuliyiinta mutakalimiinta la isku bixiyey, ibn alxaajib iyo aamidi baa u wada calanka iyo kooxo kale. maxaa sabab ah oo wasfi cadamiya in wax lagu cileeya aad u diideen? waxay dhaheen 2 sababood. midda koobaad, lianna alacdaama laa tatamayaz. markuu wasfigu cilo noqonayo oo wax la idraagi kara waa inuu yahay. idraagga iyo fahamkiina shay mutamayiz oo la fahmi karo macquul ah waa inuu yahay. macquul wuxuu noqon karaa idaa tamayaza can gayri.
cadamkuna laa yatamayaz can gayrihi lianna tamayusku waa sifada ashyaada wujuudiga ee wixii jira wax jiraa sifo qaadan kara wax macduuma sifo ma qaadan karo haddaadna dhahdaan macduum baa sifo qaadan kara bele iyo musiiba dhacaysa usuushii caqiidadoo dhan baaba baaba'aysaba oo maxay u baaba'aysaa waxaan leenahay caalamkan xaadidka ah daata muujidoo samaysay baa jirta sifaadkanna daatay ku qumaan daataday ku qumayaan cadam ma noqon karta waa wujuudeena noqotaa haddaan nidhaahno ciliyadu waa wasfi cadam bay ku tacalluqaysaa awsaaftii khaaliqa oo dhan macduum bay ku tacalluqaysaa baa ka dhalan bay dheheen meesha leanna ciliyadu waa wasfi caarida wasfiga caaridkaana laa yaquumu waxdahu laabudda shay wujuudi ah oo haabita waa inuu ku tacalluqaa haddaan nidhaahna ciliyadii wasfiga ahaa cadami bay ku tacalluqaysaa oy aharna ku yeelanaysaa idan cadamka iyo macduumku ahar buu yeelan karaa waxna waa samayn karaa wey sifaadna waa qaadan karaa haddaad saa dhahdaanna caalamkan cadam baa abuuri karay noqon halkaasaa baashilislaah waxay dhaheen alcadaamu laa tatamayiz waayo sifaad ma qaadan kara shay cadamiya sifana kuma tacalluqi karta laabudda sifadan ciliyada an yakuuna lahaa an tacalluqun calaa wujuudin shay wujuudi baana ku tacalluqdaa fadalla daalika inaan shay cadami uusan sifo qaadan karin haddaanu sifo qaadan karinna mutamayiz can gayrihi ma noqon karo waxaan mutamayiz ahaynna axkaam laguma xidhi karo marka alacdaamu laa tatamayiz intaasoo la soo gaabiyey wey waa xujada koobaad xujada labaad awsaafta cilada laga dhigayo ninka mujtahidka ihi waan soo marnay ataqsiim alxaasir ama sabr wataqsiim midka la dhihi jiray waxaa la rabaa inuu awsaaftii xasri ku sameeyo kadibna uu kala shaandheeyo wasfi cadami ah maba xasrin karaba dee cadamka lama xasrin karo waayo wax lagu dabtiya ma laha waana isku waafaqsannahay annaga iyo idinku awsaafta cadamiga mujtahidka inuusan xasrin karin ayb haddaaban la xasrin karin oo mujtahidkiiba xasrigeeda laga rabin sidee buu tacliilkiisii iyo kala shaandhayntiisi ku ansaxaysaa macaana waxaa xasrin karnay cilalka ka mid noqon karaan labadaas sababood dartood cadamku cilo ma noqon karo qulnaa waxaan nidhi aljawaabu min wajhayn tan horena jawaab baan ka bixinaynaa cadaamta laa tatamayiz mujtahidka laysa cala lmujtahidina jawaab baan ka bixinaynaa tan horaa dhib badnayd iyadu maana dhib badnaan doonta jawaabta wuxuu ihi laa nusallimu inay acdaamtu aanay mutamayiza ahayn ma sallimayno leanna acdaamtu iyo cadamku waa laba nooc wayna inoo iman doonaa masalada isagoo mar labaad si kale u soo celiyey laakiin cala ikhtilaafin bayna qowleyhi way inoo iman doontaa cadamkani laba qaybood weeye alcadamu almaxd waalcadamu alnisbi cadamka maxdiga ah sax laa yatamayiz laakiin cadamka nisbiga ah sida idaafaadka oo kaleeto ubuwada iyo bunuwada iyo mutadaayifeynka iyo waxyaabahaasi fi lkhaarij waa cadam laakiin mawjuulahaa wujuudun fi dihni maa laa wujuuda lahu laa fi lkhaariji walaa fi dihnina cadam maxdi a wey kaas kamaba hadlayno waxaan ka hadlaynaa annaga waa cadam nisbi ah oo fi lkhaarij waa cadam laakiin fi dihni lahu wujuudun buu leeyahay inuu fi dihni wujuud leeyahayna waa waxa tamyiizka iyo mutamayizu u noqday bidaliil inuu mutamayiz yahay fa ina cadama laazimi laazimka haddii la waayo cadama laazimi laazimka waayitaankiisu mutamayizun waa ka soocan yahay can cadami lmalzuumi malzuumka waayitaankiisa laazim iyo malzuum talaasumka ka dhaxeeya iyo kala saaridoodu wujuud dihni ay leeyihiin wujuud khaarijiya ma laha laazim iyo malzuumna nisbaa ka dhaxaysa mutadaayifeyn weeye laazim waxaa la fahmaa malzuumka marka la fahmo malzuumna waxaa la fahmi karaa laazim markii la fahda sida ubuwadii iyo bunuwadii waay
wa maca dalika fi ladhaani waa mutamayiza, laasimka iyo malzuumku waa mutamayizeyn. saas darteed baa waxaan nidhi nafyu laazimi yaqtadii nafy almalzuumi walaysa alcaks. nafyu lmalzuumi laa yalzamu minhu nafyu laazim. ayb markaan sidaa wada leenahay, idan laazim iyo malzuum macna ahaan isku xiran baynu dihni ku kala garannay. tamaayuz baa u dhexeeya. wilaa see loo kala garan lahaa laazim iyo malzuum? ismi mafcuul weeye malzuum, ka laga dhashay malzuumka waay. a marka laazimka nafyigiisu hal yaqtadii nafya almalzuum? la, wa nafyu lmalzuumi yaqtadii nafya alaazim. masalada waa inoo iman doontaa iyadoo qiyaaskan kasoo shaqaynayna oo dhan fii khitaami abwaabi alqiyaas. qiyaaskii oo ki mantiqigaa loo bedelayaa inoo iman doonta. masaa'ilkaa laazim iyo malzuumkaa loo isticmaalayo saaba haddaan u bedelo natiijadii waan ku keeni karnaa laleeyahay. laakiin halkan cadamka laazim iyo malzuum mid walba waxaa la fahmi karaa ka kale marka la fahmo. nisbadan mutadaayifeenka u dhaxaysa fi lkhaariji wujuud ma laha, laakiin fi dihni wujuud bay leeyihiin. saa darteed cadamku hadduu yahay cadamka nisbiga ah ee wujuudka fi dihni ku leh yatamayaz. idan wahaadaa maa natakalamu fiihi. annagu ciliyadan ka hadlayno cilo iyo macluul markaan nidhaahno waa laazim iyo malzuum baabkii waay. saa darteed cadamiyadu waa cadamiya dihniya ah ee cadamiya maxda maaha. mar hadday saas tahayna watatamaayaz fii maa baynaha, sida laazimka iyo malzuumka u tamaayuzeene loo fahmay. wa adrakahu alcaqlu alfarqa baynahuma iyo xuduuda kullin, oo say isaga talaazumayaan iyo midka kale ka laazima loo gartay. in acdaamta nisbiga tatamayaz. haddaad ku cilayseen laa tatamayaz, hada sifatu cadami almaxdi walaysa sifat alcadami alnisbi maaha. annaga baxhiga iyaguna fi lcadami nisbi weeye walaysa fi lcadami almaxdi. markaa jawaab ma haysaa? idaa darteed bu wuxuu yihi faina cadama alaazimi laazim baa la waayey mutamayizun waa ka soocan yahay fahamkii iyo caqligii iyo idraagii iyo dihnigii can cadami lmalzuumi malzuumka waayitaankiisa. mar hadday saa u kala soocan yihiin acdaamu lmaxda ama mutlaqa kama hadlaynee acdaamu lidaafiya ama nisbiyaan ka hadlaynaa. taana waa mutamayiza. fabatala qowlukum, ixtijaajkiini batal. amaa tan mujtahidka aad haydeen wa inamaa saqata wuxuu ka dhacay can ilmujtahidi wuu ka dhacay sabrigii licadami tanaahiha meelay ku dhammaata ma laha. bimacnaa laysa maqduuran lahu. mujtahidkuna waa shaksi mukalafa. mukalafkana maa fii maqduurihi wayadkhulu taxta qudratihi buu mukalaf ku noqdaa sidiisaba. idan likownihaa khaarijatan can ilqudrati bay u dhacdaye, likownahaa cilatan maaha. wixii hayru maqduur ana xaddu takliif buu ka baxsan yahay. wa inamaa kalaamunaa fi lmujtahidi wamaa yalzamuhu maa huwa daakhilun taxta alqudrati dheh uu mukalafu ku noqon karo. taana jawaabteeda qabsada dheh. halkaas qadiyadda masalada xabadeeda halkaan ku joojino. kaan baabaan ka hadlaynay buuri. kan mutlaqaad idinku ku cilayseen kan ka hadlaynana kaa maaha. tacliilkiinu fi nisbi waa baatil wey. marka hal yajuuzu tacliilu bilcilati alqaasira? ma banaanta cila qaasira in lagu cileeyo? khilaaf baa ka jira. qiila waxaa la yidhi inamaa yajuuzu waxaa bannaan may atacliilu bilxukmi. cila alqaasira way dambaysaa. masalada afraad wuxuu ka dhigay xukum ma lagu cilayn karaa? hal yajuuzu an yakuuna hada alxukmu cilatan lihada alxukm am laa? nacam yajuuzu cinda aljamhuuri wa qaala qowm laa yajuuzu. qolada laa yajuuzu tiri maxay ku cileeyeen? waxay dhaheen xukum ma lagu cilayn karaa? alghaalibu laa. laba wej hadal isku xambaarsan buu duuduubay musanifku. inamaa yajuuzu waxaa un banaanaan kara caqlan altacliilu in la cileeyay bilxukmi almuqaarin, xukumka muqaarinka. saad muqaarin u fahanto labadan xukum tartiibkooda zamaniga ah
inay muqaarineen noqdaan iyo inay muratabeyn noqdaan wey. muratab markay yihiin xukunkaad cillada ka dhigaysa inuu mutaqadim yahay iyo inuu muta'akhir yahay soo labas taqdiir maaha. marka aan basdinna taqdiirkii oo 3 hulaathi baan ka dhigaynaa. xukunkan iyo xukunkan tartiibka zamaniga imaa kan cillada noqonaya inuu mutaqadim yahay wa imaa muqaarin inuu yahay wa imaa muta'akhir inuu yahay. mutaqadimka laa yajuuzu atacliilu bihi muta'akhir laa yajuuzu atacliilu bihi. ama almutaqadim haddaad cillo ka dhigto xukunkan macluulka noqdayna muta'akhir noqdo waxaa ka dhalanaysa wujuudu alcillati biduuni almacluuli waalxukmi. waa kow huwa baatilun. haddii aad kii cilladaa muta'akhir ka dhigtana wujuudu alxukmi qabla alcillati bay noqon. labadaasoo meesha kama bixin. maxaa soo haray? muqaarinkii baa soo haray. marka inamaa yajuuzu waxaa un banaanaan kari lahaa altacliilu in lagu cileeyo bilxukmi almuqaarin oo cilladii iyo macluulku way wada socdaan. kaa un baa muqaarin cilanimo u suuban lahaa. kow halkaa maxaa la saaray? labadii kalaa la saaray oo labaduba tacliil bihimaa bihada aw bihada baatilun baa layidhi. wa huwa isaguna muqaarinku axadu taqaadiiri athalaathati saddexdii taqdiir midkood wey. muqaarin, mutaqadim iyo muta'akhir mid ka mida saddexdii wey. fa yakuunu wuxuu noqonayaa marjuuxan. marjuux buu noqonayaa. marjuuxuu ku noqonaya laba wej buu ku noqonayaa marka marjuuxa. mid weeye xukun ma lagu cilayn karaa? 3 suuraa timid. 2 suura waxaan nidhi maya. suuraa soo hartay. aqlabka xukun ma lagu cilayn karaa dhinaca haalibkaa in la israaciyaa raajix. xukun ma lagu cilayn karaa waa 3 suuro. 2 mayaan nidhi. kii saddexaad baa war ka yimid in akhaweyhii la raaciyo awlaa min in keligii la fallageeyo. waxaa soo hadhay kan muqaarinkaa ma labadii aan cillada noqon karin baan raacinaa maadaama xukum ay isku wada yihiin, mise isagu ciluu noqon karaa baan ka dhignaa? mal haalib haalib iyo naadir ayuhuma arjax. horta fa yakuunu marjuuxan taa mid u qabso. wax kalaa kuu dheer waay oosan musanifku tasriixinin. ayib 2 xukun baa mutaqaarinayna. 2 xukun baa mutaqaarinayna. markaad tiraahda kana kan cilow ah laysa biawlaa min alcagsi. maya kanaa cilow haddaan ku dhahana 2 xukun muqaarina mid baad cillo ka dhigtay. haddaan cagsiyoonka kalaa cillo kaa ku dhigan mal murajix laysa hada biawlaa min hada. haddaad kan cillo ka dhigto kamaa yumkinu an yakuuna hadaa cilatan yajuuzu an yakuuna alaakharu cilatan lahu. haddaad tiraahda cilay isu yihiin labadubana dowr baa ka laazimaya. kana kan uu taagan yahay laa yahbutu ilaa bi hada wahada laa yahbutu ilaa bi hada. haddaad tirahda labadaba cilay isu yihiin haddaad dhahdo kana kanuu cilow yahay kanuu cillo yahay miyaan dhahnaa? ma waxaan dhahnaa axadu taqdiiraati halaathka suuro kaloo soo gelaysa wey. ma waxaan dhahnaa kanaa kan cillo waa kow, mise waan cagsinaayoo kanaa kan cillo waa baan dhahnaa? mise waxaan dhahnaa labadaba cilay isu yihiin. labadaba cilay isu yihiin baatil weeye, dowr baa ka laazimaya. lianna cillada iyo macluulku cilladaa horeysa, macluulkuna uu dambeeyaa. haddaad tirahda kanaa kan cillo u ah kanaa sabqiga leh wey. haddaad dhahda kana kanuu cillo u yahayna kanaa sabqiga leh wey. kanaa leh markaad dhahday tanaaqud baa ka dhashay meeshaas. wejka waa baatil. midna adaa ku doodaya, mid kalena waa cagsigiisoo waxaad ku rajaxday ma haysid. idan kuwiisii hore in la raaciyo aqlabkii baa raajix noqonaysa fa yakuunu marjuuxan. haddana hay waa la ysu badinayaa. markii biduuni murajaxa meel inuu ka yar aadaa dhici lahaydo waa la ysu badinayaa. nimanka saa u dooday baa la rabaa in loo jawaabo. nimanka sidaa u dooday dooddaa loo jawaabay. qulnaa waxaan idhi soo waxaad cuskateen dhinaca aqlabka aan raacinna ma aha. wayajuuzu waa bannaan yahay bilmuta'akhiri xukunka muta'akhirkihi cillo muta'akhira xugun mutaqadima way u noqon kartaa cillo.
maxaa yeelay liannahu ciladu mucarifun weeye walaysa mu'ahiran wayajuuzu tacriifu lmutaakhiri bilmutaqadimi calayhi ka tacriifi alcaalami lisaanici idan kan haddaan ka dhigno mutaakhirkiina uu noqdo aqlabiyaddii xaggee raacday fag halkaasuu ka yiri markaasaa halkaasuu ka budyiri ninka wuxuu yidhi warkiina dhanba wuxuu ku salaysan yahay aqlabiyad aqlabiyaddiina waxaad ka dhaliseen mutaakhirku cillo inuusan noqon karin waxayna ku salaysan yahay mutaakhir cillo ma noqon karo cilladu mu'ahira iyo mu'ahir iyo faacil waaye waalmutaqariru cilladu mucarif iyo amaaro waaye mutaakhirku yajuuzu an yakuuna mucarifan lilmutaqadim kayf caalamkan soo mucarif bilaahi maaha haa ilaahay soo qadiim maa caalamkuna xaadis mutaakhira maaha haa dee adaab isdhiibay soo maha hadaa gacmaha taagi ka soco taana halkaasaynu ku xidhi falghaalib alciliyatu wey marjuuxanti fa yakunu raajixan u dhe marka okay muqaarinkii waan isku haynay adu ciladaad igu diiday muqaarin iyo mutaakhir mutaqadim baa israacisay mutaakhirkan kaa soo reebay maxaa kugu soo haray idan aqlabiyadda aad ku rajaxday batalat maxaad haysa aad ku diiday adigu warka hadda hadalkaas dooda muhimaddu meel dhow baa laga soo qabtay adigu ha laakiin muran ka badan baa dhalan muran ka badan baa dhalan way ka muran badnaan murano kale iyo furuuc kale ay sii geli tanaa ka muran yar marka mabadi tacriif alcaalam lisaanici la yiri mithaalka aad qaacidadooda ku tawdiixinaysa aduu mithaal musallam ayah ninkii si fudud baad kaga adkaan mogta mithaalkeen haddii lagu yihahdo hadhow garif garif dhahdo mithaal walba lagaa naqdiyo mithaalba ma haysid baa lagu dhihi marka nimankani markii dooda lasoo afjarayana aqrabu aladillati ifdaa'an ila natiijati baa la maraa okay masalada shanaad qaalat alxanafiyatu waxay tidhi jamhuurtooda weeye laa yucallalu bilqaasirati qaasirada cila alqaasira lagu cilayn maayo waa licadami alfaa'ida wax faa'ido ku jirtaan la arag waxay dhaheen cila alqaasira maba jirtaba cilaa ma noqon karto lima lianna ciladu waxay dhaheen laba faa'ido ma yeelataa inay xukunku iyada ku sugnaado oy sababu hubuuti alxukmi noqoto iyo inay tacdiye oo kahratu lmacaani ay dhaliso qaasiradu labadaa midna hadheen xukmu lasli iyada kuma sugno oo daliilku ku sugan yahay furuuc in lagu ilxaaqiyana meesha ma taallo sharcigana yusaanu canhu alcabathu wamaa laa faa'idata fiihi in loo nisbeeyo idan haddaan xukunkii asalkana iyada ku sugnayn farac iyo faa'iide ka dhalanaysoo thamara ana aynan jirin in sharcigu cila qaasira loo nisbeeyo nisbatu cabathin wamaa laa faa'idata fiihi la sharci waay washarcu yusaanu can mithli hada idan natiijadu maxay tahay laa yucallalu bilqaasirati licadami alfaa'ida intaas suurada waa waadixaan u malaynaya jawaabta qulnaa waxaan idhi macrifatu kownihi inuu yahay in la garto calaa wajhi almaslaxati faa'idatun wey fawaa'idda ciladu maxsuur kuma aha labada aad sheegteen fawaa'id kalaa jirta idan hada naqdun liqasbi taqsiim alxaasir taqsiimka xaasirka ah baa meesha laga saaray waxaa la yidhi in xukunku ku sugnaado waa faa'ido tacdiyadiina waa faa'ido in wajhu lmaslaxa fi lxukmi la fahmana waa faa'ido idan licadami lfaa'ida soomaydaan dhihin faa'idadu intaa maxsuur kumee fawaa'id kalaa jirto minhaa tan waa minhaa faa'ido kale uusan musanifkeen u sheegin oo ah in ciladii laga garto xukumkani inuusan laa yatacaddaa aslahu oon lagu khaldamin in qiyaas lagu ilxaaqiyo lafteedu waa faa'iide kalay dheheen xukumkan haddii ciladii mutacadiyadahayd lagu garto xukumka inuu gudbayo qaasiradana mas'aladan inaan farca la ilxaaqin karin cilada lafteeda lagu garta hadii faa'ida thaaniya dheheen idan faidaa wujidad faa'ida ciladiinu faa'iide malay ahayd waxaan caddayna oon keenay faa'iide inay yeelanayso fabatala qawlukum binafyi الtacliili bilcilati alqaasira halkaa ka baxyadan alakhiira masalada lixaad masalada shanaad walana weli buu sii daba socdaa intaadi kagama hadhin
maya cila almutacadiya waa haddii lagu sifeeyo lagu cileeyo xukumkan wax aan maxal kale oo la wadaagi kara jirin qaasira la yidhahdaa wax kaloo la wadaagi kara ma jira sida qoladii dahabka ribada gelaysay ku cilaysay likownihi dahaban tab likownihi dahaban farac ma uga qiyaasan kartaa mar haddii lagu cileeyo tacliil bilmaxal kaanan kusoo ishaarnay masaladaa qayb ka mida haddii wasfigan lagu cileeyey wasfi laa yumkin farac in laga helo ay tahay waa cila qaasira walanaa waxaa kaloo daliil nooah ana tacdiyata cilada mutacadinimadeedu tawaqafad waxay ku taagneyd cala alciliyati ciliyanimadii iyo munaasab inay u tahay xukunka oo wejhul maslax laga garan karo xataa cilada mutacadiyada ah inay cilo noqotaay waxay ku salaysan tahay oo asaas u ah inay munaasabo leedahay ilan markii faraca looga qiyaasanayo munaasabad xukumkii la isugu rabtiyaa waa inay jirtaa oo wejhul maslaxay leedahay istiqraa baana ku tusay haddaba cilalkii tan soo maanaan dhihin faa'iidadu wejhul maslaxa faa'iidatu wey mar haddii ciladii qaasiraba ha noqotee wejhul maslaxa ay caddaynayso laga fahmayo cilada qaasirada sida wejhul maslaxa inay ka muuqato ciliyadooda ugu xidhnayd kadalika almutacadiya mutacadiyadu cilo inay noqoto wasfigani munaasabad iyo maslaxad inuu ishtimaalu cala almaslaxati buu ku xihan yahay kow falow tawaqafat hadday ku xirnaato hiya ciliyadii calayhaa cala tacdiyati hadday ku xirnaato lazima dawru waa laazimi lahaa warkiina waxaa ka dhalanaya ciladii maslaxad haba muujisee inay cilo noqoto tacadigay ku xihan tahay tacadiguna wuxuu ku xirnaa wixii cilo inuu yahay tacadigu wuxuu ku xidhan yahay waxaan ciliyadiisu inay sugan tahay oo maslaxadii wixii ku sugan tahay haddii aad shardi aan ka dhigno cilo qaasira cilo ma noqonaysa aan uga dhignay mutacadiye ma aha idan ciliyadiina tatawaqaf cala atacdiya waatacdiyatu tatawaqaf cala alciliyati maxaa ka laazimaya fayalzamu dawr idan haddii aad qaacidadiina martaan mutacadiyadu xataa cilo ma noqon karta lianna maa yalzamuhu dawru baatilun fahabata bi hada inaan tacadiga ciliyadu ku xidhnayn haddii wixii hubuudkiisa iyo ciliye inay sugnaato uusan tacdiye ku xidhnayn qad yakuunu mutacadiya qad yakuunu qaasiran suuradani waan xataan u malaynaya wax la isugu keenay kan ugu dambeeya inay banaan tahay oo maray cilada qaasirada sabab ha jamhuurta wey waa xanafiyo lala dagaalamayaa hadda khilaafka masaladan altacliilu bilcilal almurakaba waay hal yajuuz te may kiibuu sii adkaynayaa daliil buu ka dhiganayaa daliil buu ka dhiganayaa uu ciliyad tacadigii ay laazimka ka dhigeen uu ku ibtaalinayo wej kale haa bidaliil mutacadiyada xataa ma ihbaatin kartaan haddii aad tacdiyada ka dhigtaan ciladii ciliyadii tatawaqaf dawr baaba ka laazimaya idan waa inaan dhahdo ciliyadu tacadiga kuma xirna haddaan dhahnana qaasiradii baan ogolaanay dee alkhilaafu fi اtacliili biاlcilati اlmurakaba cila murakaba ma noqon kartaa ikhtalafuu faajaazaha aljamhuuru jamhuurtu waa ogolaadeen wa manacaha albacdu bacdigan manciyey wa-ayo waxaa loo tiiriyaa liabilxasan alashcari wa bacdi almuctasila baa qowlkan loo tiirinayaa kamaa jarat bihi caadatuhu daliilkoodii buu soo hormariyey daliilkani daliil dhib badan waa jawaabta musanifkuna jawaab faasida waa daliilkuna daliil khatara waay jawaabtuna jawaab faasida wey iiraadkeeduna sahwi waay intaa dhawaada tawdiixin doona haddii hala yihahdo marka waa inaan jawaabo kale keenno jawaabo kale inaan keenno waa waxaa la yidhi low cilo murakabku waa cilo ajzaa leh juz-ayn aw halaath alqatlu alcamdu
alcudwaanu baa layidhi waa cila murakaba qisaasta waxaa keena cilatu lqisaasi kownuhu qatlan camdan cudwaanan ama kownuhu camdan cudwaanan murakab min juz-ayn wasfayn murakab min halaatha awsaaf min arbacati khamsa cadad buu yeelan karaa laakiin murakab min wasfayniga ugu hooseeya ka qaado ama min halaatha ka qaado saadu maadan banayn wasfi murakaba in lagu cileeyo calaa qowli اljamaahiiri manciga abulxasan ashcari bacd lmuctasila loo diidiyey maxay ku sababeen sabab uga dhigeen diidada soo dhegeysa marka waxay dhaheen low cullila bilmurakabi wasfi murakaba haddii wax lagu cileeyo fa ida intafaa meesha hadduu ka baxa juz-un qayb ka mida tantafi lciliyatu murakabkii ciliyadiisii oo dhanba meesha way ka baxaysaa daruurata ana intifaa'a juz-in min almurakabi intifaaun likullihi shayga murakabka waxay yidhahdeen haddii juz la waayey isagoo la waayey buu la mid yahay dhammaantii isagoo dhammaantii la waayey wixii murakabnimada cilada ugu ahaa cilanimadii way dhimanaysaa baaqigu cilo ma noqonayo idan murakabkan cilada ahaa juz haddii la waayo ciliyadii wuu ka baxayaa kow linafrid murakab hulaathi ah halaatha awsaaf ah baa meesha inoo yaalla aljuzu alawal markii la waayey batalat alciliyatu soo maha ibtaalu lciliya juskaa la waayaan u nisbaynay huma ida intafaa juzun aakhar juz kala haddana meesha ka baxay juskii labaad baa meesha ka baxay ma dhahaynaa hal nansib ilayhi intifaaء alciliyati haddaan dhahno taxsiilu xaasil waayo waayo ciliyadii kii hore ay ku burtay kan muxuu soo kordhiyey kan kale baxay muxuu soo kordhiyey taxsiilu lxaasil mumtanic waaye waa safah min asafahi wasafsatati waaye taxsiil xaasil meesha kuma jiro murakabkii juz baa baxay hulaathigaha waxaan idhi intafat alciliyatu juz labaad baa haddana baxay ma dhahaynaa intafat alciliyatu nafyi intifaa lciliya horaaban u haynay muxuu soo kordhiyey intifaa lciliyi soo kordhiyey maxay tahay okay lam tantafi lciliyatu baan nidhi ciliyadii waa baaqi ma ka dhalatay xukunkii ma ka dhashay maya juz horaaba maqanay saa uga dhashay murakab juz maqan yahay weye saa uga dhashay juskii koowaad oo maqan kii labaad markuu baxay hal intafat alciliyatu am laa in qulta nacam fa taxsiilu xaasilin wa in qulta laa biictiraafika juska hore oo maqan xukunkii macluulkii ka dhalan maayo idan ciliyadiina way joogtaa macluulkiina kama dhalaninna takhalufu lmacluuli can alcilati waay ya marka juz thaani markii uu meesha ka baxo beenaka khiyaarayn axlaahumaa murun inaad dhahdo intifaaءu lcilu faa'iideeyey juskan kalena oo taxsiilu xaasil aad ku dhahdo inaad tirahdo ma intifaacu lcila ma faa'iideynine macnaheed muxuu yihi intifaa lcila ma faa'iideynin waa baaqiya wey xukumkiina aadan ka ratibin oo juskii horaa maqan oo takhalluf almacluul can alcila u dhaco labadaa khiyaar axlaahumaa murun wakiilaahumaa baatilu low culila bilmurakab haddii lagu cileeyo dha marka fa ida intafaa juz-un juz hadduu meesha ka baxo tantafi lciliyatu meesha way ka baxaysaa waayo murakabka haddii juz la waayo kulligii in la waayay buu lamid yahay huma ida intafaa hadduu kadib ka baxo meesha juz-un aakhar juz kale yalzamu takhalufu baa laazimaya ciliyadii kama bixin hadaad dhahdo cilo bilaa macluul ay noqon aw taxsiilu lxaasili way baxday ciliyadii haddaad dhahda bisababiha intifaa hada ljuzi oo markii hore bay intafade haddana maxaa intifoobay kii horen ku celceli miyaa taakiid miyaa taxsiilu xaasilin wey wa kilaahumaa baatilun suurada waadixaan u malaynaya dooda garag juz-yadan dambe juskan ha celiyadii ma bixin macnaheedu maxay tahay way joogtaa wey macluulkii ma ka dhalanayaa waxaan leenahay maya waayo juz baa maqan idan cilaa joogta macluulkiina kama dhalanayo takhalluf waayo haddaad taraad ciladnimada meesha ka baxdayna kii horaa ka saaree kan muxuu saaree taxsiilu xaasil waayo labadaa khiyaar axlaahumaa mur may lihaada sabab murakabku cilo ma noqon karo abulxasan ashcari iyo bacd lmuctazila saa ku dooday ama iyagaa sariix ugu dooday ama calaa lisaanihim baa loogu dooday qowlan waxay la garanayni daliilkiisa waan sheegi jiray soo doodi jiray
kaba soo qaad cid baa tiri muxuu deliishan lahaa matal adigu halkaa soo istaago u dood waynu soo marnay haddii xataa iyagu waa loo nisbeeyey baa la yidhi oo lama xaqiijinin haddayna dhihin xataa qofkii sidaa dhaha maanta haddaan aniga ahay saasaan u doodi lahaa wey ee waxaad iigu jawaabi lahayd waan isla qabnaa aniga adigu inuu cillo noqon karee saasuun dhihi lahaa ninkii naga soo horjeeday maxaan ku jawaabi lahayn dhe qulnaa waxaan idhi alcillatu cadamiyatu weeye falaa yalzamu daalika takhalluf iyo taxsiilu xaasil midna kama dhalanayo halkan daahirka kalaamkiisu wuxuu rabaa inuu ina yidhaahdo ictiraadkiinu wuxuu ku salaysan yahay inay cilladu tahay shay wujuudi ah walaysa kadalika amri wujuudi ah inay tahay meeshan wax kaloo ka sii dambeeyaa laga dagaalamayaa oo jawaabtani aynan isu waafaqaynin meeshan waxaa yaalla halkan waxaa taalla shaygii cillada ahaa ma wujuudi baa mise waa cadami haddaan dhahna cilladu wujuudi weeye shay kastoo wujuudi ah cilli u baahan yahay kullu wujuudin laabudda lahu min muujidin cilladii wujuudi haddaad tiraahdo cillo kaley usii baahan tii kale wujuudi markaad dhahdana tu kaley usii baahan tasalsul baa dhacaya marka ta waa qadiyad musanifkeenu markuu taasuu ka jawaabayaa wuxuu ku leeyahay cilalku wujuud khaariji ah ma laha si ay ugu baahata cillo kale walidaalika laa yalzam tasalsul ma laazimayo cillada hadalkiina ictiraadkiina wuxuu ku salaysan yahay inay wujuudi tahay mana aho waa shay cadami ah waayo wujuudi hadday tahay cillo kaley u baahnaan lahayd cilladaana cillo kaley u baahnaan lahayd tasalsul baa ka dhici lahaa wa huwa muxaalun maxaa soo haray cilladu waa wasfi cadami ah wasfi cadami ana cillo kale uma sii baahdo falaa yalzamu tasalsul hada huwa jawaabu jawaabtii misleeyihin ictiraadku idan hadaa jawaabun faasidun waaye ishkaalkuna wuxuu ka dhacay asalkiisii baa wahmi ka dhacaya sahwi fatabicahu lbaydaawi saaxib alxaasil asalka kutubtani waa maxsuulkii raazi maxsuulkii raazi halkan kan jawaabteedu ma ahayn cila cadamiya falaa yalzamu dalika raazi baa iska leh laakiin shubhuu keenay taasuu kaga jawaabay shubhadii bay xadfeen fa abqaw ljawaaba ka jawaabtani xujo ay ictiraad aynan lahayn baa qoorta loo geliyey dhammaan shuraaxduna sidaasay qarirayaan isnawi dheh subki ma feerinin alwaliy alciraaqi dheh kaasay qarirayaan maxay ahayd shubhada asalkeedu shubhada asalkeedu saaxibulmaxsuul wuxuu leeyahay waxay dhaheen niman yaho wasfigan murakabka teenna waa usoo noqon doonaa iyo jawaabteedii cilatu cadamiyatun inayna jawaabtii tan ahayn oo sahwi saaxibulxaasil ku dhacay wa tabicahu lmusanif uu yahay waa jawaabu raazi bixiyey shubha maxduufuuna ugu jawaabay daahirka kalaamkeenunoo tan inay tan jawaabu tahay waa idan jawaabtii iyo ictiraadku isma leh maxay ahaayeen waxay dhaheen shaygan murakabka ah waxa cilada laa yakhluu min waaxidin min halaatha imaa kullu waaxid cila mustaqila inaad dhahdaan wa imaa inaad tiraahdaan majmuuca ah wa imaa waaxid minhaaba ah inaad dhahdaan haddaad tiraahdaan waaxid kullu waaxid waa cila fa hada baatilun lianna alfarda cila murakaba weeye cila basiita maynaan ka hadlaynin haddaad tiraahdaan ajzaadani kullu waaxidin waa cila taama haddaad dhahdaan cila murakabaan ka hadlayna cila mustaqila maynaan ka hadlaynin saa ma dhihi kartaan kow haddaad dhahdaan waaxid baa ciladii ee juz ka mid a ajzaada kalee murakabku cilo maahana isna tarkiibkii baa meesha ka baxayo waaxid weeye inta kalena mujaratu tatwiilin wey lilkalaam waaxid hayr mucayan haddaad dhahdaan inta kale dee wax ta'hiiraba male ajzaada kale mid u weeye midkii aan ka hadalno
sabriya taqsiimkii iyo tamyiizkii baan maraynaa. labadaba waa khaarij can maxali nisaac hadaad dhahdaan. maxaa soo haray? almajmuucu inuu yahay baa soo haray. waxay yidhahdeen majmuucuna ma noqon karo. laba arrimood baa ka dhalanaysa in haddaan saa dhahan. waxani waa qadaaya caqliya iyo awsaaftan iyo cilalkan iyo waa qadaaya caqliya. qadaaya alcaqliyana fi cilmi اlkalaam laa yajuuzu inqisaamu alcilati alcaqliya. asifa alcaqliya ma qaybsami karto. halkan waxaa ka dhalanaya wax fara badan oo isku urursan kalena bixbixi kara. waxaa kaloo ka dhalanaya alwaaxid hal yusnadu ila alkathiir, isnaadu lwaaxid oo ciliyadii ah ila alkathiir oo ajzaa badanaa ka dhalanaysa. ajzaadaas inay ka dhalatana wax caddaynayay u baahan. inay ajzaada isku xirnaanta uga dhalanayso wax caddaynayoo waaxid ka dhigay u baahan. waxaa caddaynayana wax sii caddaynayuu u baahan. fa yalzamu tasalsul. alcilatu cadamiyatun taasaa looga jawaabay marka. tasalsul kama waajibayo. shay badan hal wax waa loo tiirin karaa, wax badanna hal shay waa loo tiirin karaa. waxaanaad leedihiin tiirintaasi wax ihbaatiyo isku demjiyey u baahan wuxuu ku salaysan yahay inay ciladu wax wujuudi ah tahay oy cilo kale usii baahanayso asalka qowlkiinu u noqonayaan. ciladuna waa shay cadamiya, cadamiguna cilo kale uma sii baahdo. saas darteed falaa yalzamu dalika tasalsulkaas. min hunaa adragta jawaabtani tii tan maaha. tan jawaabteeda maxaa la dhihi? tan jawaabteeda waxay dhaheen waa sahlantahay. waxaanaad tiraahdeen ajzaada murakabada ah markay isu wada timaadee cilada kullu juz'in shartun wey fi lcilati. marka la waayana ciladii waxaa la waayay licadami sharطihaa. waahu hawnaa masaa'il. halkan masaa'il kaloo dhowrahoo aqsaamta iyo la xiriiro cilalka la xidhiidhaa jira. aluulaata hore waana 5 mas'alo. waxaa ugu dhib badan tan u horeysa, waxaa ku xigta dhibbadnida ta ku xigta, inta ka saddexda dambe way dhib yaryihiin. aluulaa masalada ugu horeysa, yustadallu waxaa loo daliishadaa biwujuudi alcilati cilada joogitaankeedaba waxaa loo daliishadaa cala alxukmi xukumka. markaad xukumkii aragto ciladuu daliil u yahay, ciladii inay joogtuu daliil u yahay oo yucarif cala alcilati laa biciliyatihaa. inay cilo tahay daliil uma noqon karo oo isagu ciliyadeeda ma keeni karo. marka xukumka joogitaankiisa maysaa maaha. laa yustadallu biwujuudi alcilati waxaa loo daliishadaa cala alxukmi calaa wujuudi alxukmi. cilada wujuudkeeda markaad aragto waxay caddaynaya daliil u tahay xukumkii inuu joogo. lianna almacluula yatawaqafu cala alcilati. xukumku waa cilada aharkeedii ama way tacriifinaysaa dheh. markaad calaamadii aragto in waxay calaamaddu ahayd meesha joogaad garanaysaa. hadaad gaadhi hebel ku taqiinay ood gaadhigii aragto maxaad ku garatay? isagii waa mucarif markaan ka dhigno. haddaan mu'ahir ka dhignana ciladu macluulkaa daba socda. saas darteed mar haddii ciladii la helo waxay daliil u tahay calaa wujuudi alxukmi, xukumka inuu joogo. waxaan ka saari karaa maanic iyo wixii lamid a. laa biciliyatihaa laa yustadallu alxukmu, xukumka loo daliishan maayo biciliyatihaa inay cilo tahay. xukumka joogitaankiisa markaad aragto inuu wasfigani cilo yahay xukumka looma daliishan karo. leanna macluulkii oo daliilu ah ciladii baa ka dhalan. soo dawr maaha markaas. ciladu waxay daliil u tahay calaa wujuudi alxukmi. xukumkana wuxuu daliil u yahay haddaan dhahno wasfiga ciliyadiisii. soo dawr ka dhalan maayo. dawr baa ka dhalanaya. haa liannahaa ciliyadu nisbatun weeye tatawaqafu ku taagan calayhi cala alcila.
waa nisbe cilada iyo xukumka ka dhaxaysa weeye ciliyadu. nisbadii u dhaxaysay mutaqadim iyo mutaakhir bay leedahay. ciladuna waa mutaqadimkii, xukunkuna waa mutaakhirkeedii. haddii aan idhahno mutaakhirkana daliil u ahoo lagu garanayaa mutaqadimkii, mutaqadimkaana lagu ogaanayaa mutaakhirka joogitaankiisa, nisbadu waa inay dhinacay ka bilaabatay iyo meel ay ku dhammaata leedahay. haddaan idhahno xukumkaa daliil ciliyadii u ah, nisbadii ka dhaxaysay marna waxaan leenahay xukumkaa asal ohay ka bilaabataa si kaa loo garto, marna waxaan leenahay kanaa asal ohay ciladii ahoo ka soo bilaabataa xukumkaa aharkii ah. isma qaadan karaan, dowr baa ka laazimi. saas darteed xukumku daliilu ma aha wasfigan ciliyadiisa, laakiin wasfigan cilada aa daliil u ah xukumka joogitaankiisa. nisbaduna waxay ka bilaabataa xagga wasfiga mutaqadimkaay ka soo bilaabataa, xukumkana inay ku dhammaataa. haddaan nidhaahno xaggan ay ka bilaaban oo isna daliil buu u yahay, haddaan dhahno dowr baa laazimaya. hadaa yatawaqaf calaa haadaa wa hadaa yatawaqaf calaa haadaa baa imanaysa. marka saddex meel baa saddex shay meesha taallo, xukun iyo cillo iyo ciliye. haa, ciliyadu waa nisbadii. ciladii iyo xukumkii wasfiga nisbada isku xidhnaantooda nisbaa ka dhaxaysa. nisbada isu tiirintooda ciliye la yidhaahdaa. nisbada ciliyadu waxay ka timid wasfiga, xukunka kuma xidhna. qad laa yuujadu lxukmu limaanicin wa tabqaa nisbadii cilada ahayd, ciladii ay baaqi ahaan. saas darteed wasfigan inuu cilo yahay laguma garan karo xukumku, laakiin xukumka inuu joogo wasfiga ciladu daliil bay u noqon kartaa, xataa laa yalzama dawru. athaaniyatu, mas'alada labaad, arrintaasi qaalahu lmusanifu tabacan liraazi wa khilaafan liaslihi saaxib alxaasil. saaxib alxaasil tan markuu keenay wuxuu yidhi waxaasi waa baatil min wajhayni. istidlaalkan la nafinayo xukumku inuu tacriifinayo ciliyada iyo cilada, nafyigani waa iyo waxaan lagu deliishaday iyo nisbadan loo deliishaday waxba kama jiraan buy. liamrayni, laba arrimood dartood baan warkaa waxba uga jirin buri, waar daciifa buy. waa marka koobaadee tawaqufkan laga hadlahayo waa shay dihni iyo fi lkhaarij ma aha. dihnigan waa la tasawuri karaa, tasawurka dihniga waa la samayn karaa, wujuud khaariji ana mabalaha. waa midda labaadee wax dowra ka dhalan maayo, waayo ciladu waa mucarif. waxa uu dowr ka dhalan karaa mu'ahir hadday tahay. laba shay inay istacriifiyaan, ubuwadii iyo bunwadiiba ka soo qaad wiirdi way istacriifinayaan. laba shay dihnigana waa tasawuri karaa, mar haddayna wujuud khaariji a lahayn, mar hadday tacriif tahayna dowr ma laazimayo. musanifkuna isagaa marar badan baydaaweyna soo yidhi saas oo kaleeto. saa darteed waxa waa daciif buu yidhi. athaaniyatu, mas'alada labaad lafteedu ma sahlana. altacliilu bilmaanici, maanic in lagu cileeyo laa yatawaqafu kuma taagno, uma baahna cala almuqtadi ay calaa wujuudi almuqtadi, inuu jooga muqtadigii. liannahu idaa ahara hadduu saameeyo macahu lmuqtadi oo jooga, fa biduunihi isagoon joogin baa awlaa habboon, wa huwa qowlu ljamhuuri. saddex suuro aynu kala qaadno. suuriyiintu waxay isku waafaqeen xukumka in lagu cilayn karo bicadami almuqtadi. ninka lama qisaasayaan dhahayna, maxaa yeelay muqtada alqisaas oo camdi cudwaan ahaay ma jiro. wasfigii aladii cilada ahaa ee yaqtadi qisaas ahaa ma jiro. ninkani lama qisaasayo waayo shardu takliif baa la waayey, cadamu lmuqtadi oo caqligii iyo takliiftii ah. wasfigii muqtadi lilxukmi ahaa ee cilada ahaa, cadamu lmuqtadi waa lagu cilayn karaa wifaaqan. kow, wujuudu lmaanicna waa lagu cilayn karaa. laba, labada waa isku raacsan yihiin, khilaaf kama taagna. suuradan dambe wujuudulmaanic markaad ku cilaynayso, muqtadihii inuu joogo ma shardibaa mise ma aha wey halka la isku haya.
oy tahay muqtadihii waa joogaaye laakiin maanic oo maanica waxaynu keeni karnaa un marka muqtadihii joogo mise isagoon muqtadihii joogin ubuwadu waa maanic min alqisaas waan dhihi karnaa isagoon qatli camdi cudwaanaba jirin ubuwadu maanica min alqisaasi ma dhihi karnaa mise waa inaan nidhaahno camdi cudwaana markuu jiro ubuwadu waa maanic saas orda jamhuurtu waxay dhaheen waxba wujuud lmuqtadi shardi maaha maanicu ida kaana maca wujuudihi maanican fa maca cadamihi min baabi awla fa biduuni awla qolana waxay dhaheen maya ya maca cadamihi ha maca cadami lmuqtadi waay qiila waxaa la yidhi ictiraadki waa ka nimankii sidaa qabay daliilkoodii waa ka laa yusnadu alcadamu cadam wax looma tiiriyey almustamiru daa'imka ahe weligii soo jiray waxay dhaheen maanican aad leedahay uwadaa diiday iyadoon muqtado jirin maxaa la diidayaa maba jire halkan mas'ala muhima inaan isla fahanno marka halkan waxoogay tii cadam mutlaqa iyo cadam idaafi ah soo maynaan u qaybinin soo labada maynaan qaybinin haddana cadamkii baanu qaybinaynaa si kale ictibaar kaleaan u qaybinaynaa caawa inaga iyo cadam baa ishayne waxaan leenahay alcadamu alqadiim waalcadamu alxaadith waxani ma jiradiisu ma jiradii istisxaabul asliga ahaydee weligii ma jirin wey ninkani asalkaba qisaas laguma lahayn inuusan qisaasba aabbuhu ilmihiisii dilin oosan kaba gelin baa asal ahayd cadamka asligaa waa qadiim xukunkiisu inaan qisaas lagu lahayn xukumku waa qadiim bina'an cala kalaami nafsi intabi kalaamka nafsigaa markaan maraynay xukumku soo qadiim ah qofkan aan muqtado la imanin lam yaqum bihi lmuqtadi intifaau lxukmi canhu soo qadiimkii maah soo qadiim maah waa asalkii xukumkaa qadiimka ah nafyigiisa markaad meesha ka saarayso maanica ubuwadoo xaadith ama loo tiirin karaa ma lagu tacliilin karaa waad banayseen cinda aljamhuuri haddaad tihiin maanica in loo tiiriyo maca cadami lmuqtadi baan ka hadlaynaa idan muqtadi ma yaalla meesha waxa meesha yaalla waa cadamkii asliga ahaa xukumkiisuna qadiimka ahaa wey hay xukunkaasaa sharcan aan ogol lahay soo maa xukunkaa maxaadith ba mise waa qadiim idan qadiim cindahum jamhuurta waa ogoshahay qadiim inuu yahay xukumka sharcigiihi ee ninkan waxba dilin diintu maxay ka qabtaa qisaas ma lagu leehay xukunkaasi maxaadith baa mise waa qadiim cindahum qaaluu qadiim ayib xukunkii waa qadiim baad dhahdeen ubuwadu maanicii maxaadith baa mise waa qadiim hal yajuuzu tacliilu lqadiimi bilxaadithi laa yajuuz ayib dhegeysta hadaa marka laa yusnadu alcadamu cadamka hore oo qadiima almustamiru ee soo jiitamayey in xaadidka ahayn loo tiirin maayo lilmaanici alxaadithi waay liannahu yalzamu minhu tacliilu lqadiimi bilxaadithi intaa waa isla fahnay soo maha hadihi alxujatu iyagaa xukunkii qadiim inuu yahay ogol cadamkan inuu qadiim mustamir yahay ogol maanicu xaadith inuu yahayna ogol marka waxaa ka dhalanaysa iyadoon muqtado jirin markii muqtado jiro muqtadahana maanican xaadithkii uu meesha ka saaraya haddii xukum qadiima ahaa xukum qadiima hadduu ahaa muqtadahani waa xaadith oo camdi cudwaanka ah xaadithka maanica ah maanic waa lagu cilayn karaa xaadith waa lagu cilayn karaa aan dhaho oo muqtaduhuna waa xaadith maanicuna waa xaadith soo ma muqtado ma jiro
cadamku waa qadiim mustamirka ee soo jiray qadiimkii xaadis cilo uma noqon karo biitifaaqin baynana wa baynakum haddii maanicii biduuni lmuqtadi cilo aad ku tacliilisaanna yalzamu minhu tacliilu lqadiimi alcadami almustamir oo qadiimka bayna qowsayn bilxaadisi almaanici almutajadidi maanica maanicaa jooga wujuudulmaanic baa loo qisaasi waayaa tiri muqtadihii camdi cudwaanna ma jiro inaan la qisaasaynin xukun qadiimay ahayd hadda cilo waxaad oga dhigtay maanic xaadis tacliilu lqadiimi bilxaadisi surada waadixaan maraynaya halkaas weeye meesha laysla hiigsanaye qoorta la iskula jiro waad iska dhegaysatee marka masaladaas marka cadamka ku saabsan quwadan hadda lagu tusaaleynayo keliya miya mise waa masale siyadaba aslan dadka inaan waxba lagu lahayn dadka o dhan ba dadka inaan waxba lagu lahayn xataa yaatiya bilmuqtadi wa xukum qadiima cindahum muqtadihii oon jirin inaad maanic ku cilaysana maanicu waa xaadis marka tan hadda waa darbu darbu mithaalin wey qulnaa waxaan idhi alxaadiثu ka dambe yucarifu alazaliya qadiimka wuu tacriifin karaa kaalcaalami lisaanic wixiina wuxuu ku salaysan yahay ciladu mu'ahira faacila inay tahay annaguna marar badan waxaan ciladu mucarifa wey xaadis mutaakhirihi wuu tacriifin karaa qadiim azali ah kama carafa alcaalamu alxaadiثu bisaanici alqadiimi alazali cindahu godkii waa ka baxay ninkii soo maha fagdhe halkaasna athaalithatu masalada saddexaad laa yushtaratu alitifaaqu in laysku raaca min alkhasmayni shardi maaha calaa wujuudi alcilati cilo inay joogta fi lasli لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى